dhulboob kuwa xarka goostay waa xayndaab furtay waa xuduud dhaafay waxa uu marayaa meel su'aal gelinaysa dadnimadeenna damiirkeenna dawladnimadeenna iyo diinteennaba waxa dalka ka socda oo ku takrifal ah dhuleed waa arrin runtii qof kasta oo Soomaali ah ku soo laabanaysa dhaawacuna oo ummadda Soomaaliyeed kulligeed safmar haddana u yahay una sii noqon doono hadda waxa socda dhulboob keliya ma aha waa xaalufin boob keliya ma aha waa burcad dhuleednimo waxa hadda socda waxay su'aal gelinayaan bulsho noocee ah ayaan nahay dawlad iyo dal sidiisaba saddex shay baa astaamo u ah waa dhul xuduud leh dad xuquuq leh iyo shuruuc ay ku dhaqmaan dhul xuduud leh dad xuquuq leh iyo shuruuc ay ku dhaqmaan saddexdaa markay isu tagto bay ummaddu iska doortaan dad hoggaamiya oo saddexdaa lagu aamino u ilaaliya saddexdii baan rabnaa markii inaan isdul taagno kow dhul xuduud leh dawladdu xuduudaheenna kama shaqaysee dadka xuduudaha degan bay ku weerartaa ciidanka dawladda federaalka dadkii ku dhibaataysaa dhulkii magaalada muqdisho ku yaalay oo lagu aaminay oo loo dhaariyey ay kitaabka gacanta u saareen oo madaxweynaha madaxweyneedkiisu dhammaaday uu kitaabka gacanta u saaray isaga iyo xulufadiisaa iibsaday si sharci darro ah iyagaa boobay oo dadkii dhulka ka boobay waxaa markaa mucjiso ah iskuul maanay reebin oo isbitaal maanay reebin oo xero ciidan maanay reebin oo meel ummadda isugu timaado maanay reebin oo askarti meeshii ku gaardi jireen iskool biliisiye bannaankeedaed maanay reebin oo hal meel oo ummadda loogu shaqeeyo maanay reebin iyadoo hay-ado badan oo dawladda u shaqayn lahaa ay guryo ijaara ku jiraan subaxi markay shaqo yimaadaan marka waxay ka sheekeynayaan xaggeebaa maanta la boobaa yaa noo soo arkay dhul arrinka labaad oo lagu cabiro dawladnimada waa dad xuquuq leh madaxweynaha madaxweyneedkiisu dhammaaday iyo inta la shaqaysa intii ay joogeen xukunka magaalada muqdisho waxay ka barakiciyeen 500,000 oo qof waa nus milyan 500,000 oo qof oo caruurtaas aanay iskuul lahayn oo caruurtaas aanay isbitaal lahayn oo dadkii magaalada deganaa oo adeegyada bixinayay oo shaqaynayay ay shaqo la'aan yihiin kuwa raba inay magaalada muqdisho usoo shaqo tagaanna inay 20-30 kilomitir bannaankooda ka soo shaqo tagayaan waa qayb ka mida dhaqaale xumada dalkan soo wajahday sida loola dhaqmay bulshada Soomaaliyeed dadkaas la barakiciyey oo 500,000 oo qof ah qaarkood hadda gaajiye wajahayaan abaarta dalkan hadda ka jirta
oo ay sababeen xaalufinta iyo dhulboobka iyo dhaqaale darrada ku tumashada sharciga wuxuu dalku qarka u saaran yahay macluul cusub inay ka dilaacdo ilaahay ummadda ha ka badbaadiya dowladdii ilaalin lahayd oo ummadda daryeeli lahayd kitaab gacanta loo marsiiyey inay xoolaha ummadda ilaalinayso iyadaa boobaysa iyadoo markhaatimo doonta ah marka haddii dhulkii lagu aaminay iyo xuduudihii aanay ka shaqaynayn dhulkiina iyagu ay boobayaan haddii dadkii iyaga loogu talagalay inay ilaaliyaan ama loo dhaariyey inay ilaaliyaan magaalada muqdisho keliya in ka badan 150 goobood oo ku soo celinaya in ka badan 150 goobood ayay ka barakiciyeen dadkii waa qiyaasi kartiin marka 150 goobood deegaano ka badan in 4 sano shaqadoodu ay ahayd dadka inay ka barakiciyaan waa garan kartaan tirada ay la eg tahay dadka la barakiciyay waxaa soo haray sharciyaddii waa ka dhammaatay dowladda hadda jirta weliba boobka iyo barakicinta iyo xaalufinta waxay samaynayaan iyagoon sharciyad haysan hadda marka waxay ka walwalsan yihiin sida hore loo sheegay marka aad dhulka dhammaysaan diiradda xaggee saartaan waa kuwa ka sii arrinsanaya marka waxaan rabnaa meel walba inaan ku soo rogno sharci cusub oo ah sabaraloog cusub oon guri walba oo xamar ku yaalla lacag dheeraada uga qaadano haddii marka dhulkii dowladda iyagu ay boobeen xuduudihii aanay ilaalinayn dadkii loo doortay inay iyagu ilaaliyaan iyagu ay barakicinayaan ay boobayaan ay dhacayaan haddii sharciyaddii lagu doortay ay diideen ama aanay oggolayn ay leeyihiin sharci darraan isaga joogaynaa waana idinku xaalufinaynaa haddii ammaanadii kitaabka ilaahay ay gacanta u saareen ay yidhaahdeen ma doonayno waxaan rabaa qof walboo Soomaaliyeed inuu fahmo in adigana ay kugu imaanayso maadaama ay adiga kugu imaanayso macnaheedu ma aha dhul dowladeed waa ka soo dhamaadeen dhul dowladeed hadda waxa la dhacayo waa dad 100 sano dhulka iyagu iska lahaa qof kastoo Soomaaliyeed oo magaalada Muqdisho degan caawa waa ina ogsoonataa guriga aad degan tahay in lagugu imaan karo ama lagugu imaan doono dulmiga in laga dhiidhiyo muhiim waaye marka waxaan rabaa markii aan ku soo afjaro dadka Soomaaliyeed kulligood waxaa la gudboon inay gacmaha isqabsadaan meel kasta ay joogaan sababtoo ah waxa magaalada Muqdisho ka socda waa wax khatar ku ah dowladnimada Soomaaliya waa wax khatar ku ah dadka iyo dhaqanka Soomaaliyeed waa wax khatar ku ah midnimada iyo wadajooga ummadda Soomaaliyeed ugu dambeyntina waa wax khatar ku ah diinta iyo damiirka waa mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh